howlgal muddooyinkii dambe ay wadeen taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta galbeed waxay maanta ku soo qabteen 3 doomood kuwaasoo siday jaad, qamri iyo xashiish iyadoona lagu gubay gudaha taliska saldhigga degmada Xamar Jajab. Goobjoog waxaa ka ahaa gaashaan la dhexe Mahad Cabdi Cumar Mahadkulow, taliyaha qaybta Waliyo Cade, taliyaha qaybta galbeed gaashaan la dhexe Yaasiin Gane, taliye xigeenka qaybta galbeed Bashiir Durqan iyo taliyaha saldhigga degmada Xamar Jajab Nuur Cabdullaahi Salaad. iyadoona taliska booliiska Soomaaliyeed ay arintan ku tilmaameen mid ay sii wadi doonaan si loo cirib tiro bay yiraahdeen waxyaabaha bulshada dhibaatada ku haya isla markaana dhawaan kulan ay ku yeesheen Muqdisho ayay ahayd markii si aad ah ay ugu falanqeeyeen qaabka kahortag xoogan loogu sameyn karo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo maskaxda dhalinyarada si aad ah loogu dhalan rogay. gubitaanka kadib si kooban waxaa warfidiyeenka ula hadlay afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed digniin adagna u diray dadka kontrabaanka ka ganacsada. waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan u soo bandhigno waxyaabihii muddooyinkii la soo dhaafay bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ku hayay qayb kamid ah oo maantay ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo u hoggaansan amarkii taliska booliisku uu soo saaray oo ahaa la dagaalanka waxyaabaha muqaadaraadka ah oo bulshada Soomaaliyeed dhaqankoodii iyo keenay shilal badan ee magaalada Muqdisho ka dhacaan taas oo sababtay in taliyaha booliiska Soomaaliyeed uu sameeyo hoggaan la yiraahdo dhaqanka iyo diinta si looga hortago waxyaabaha bulshada Soomaaliyeed ku soo badanaya maandooriyaha ah. qaybta guud oo fulinaysa amarkaas ayaa maantay waxay gacanta ku soo dhigtay 3 doomood oo siday qaad, qamri iyo xashiish. ka arki kartaan goobtan ay ku gubeen amarkan oo horey uu soo saaray taliska booliiska Soomaaliyeed qaybta guud oo fulinaysa amarkaas la dagaalanka kontrabaanka ayaa gacanta ku soo dhigay 3daas doomood oo xooraankooda ay heleen oo muddooyinkan ba ku howlanaa doomahaas inay magaalada Muqdisho soo geliyaan qamriga, xashiishka iyo qaadkaba. saakay waxa u suurto gashay in 3daas doomood gacanta lagu soo dhigo halkanna lagu gubo qaadkii iyo qamrigii iyo waxyaabihii ay sideen. haddaba dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku hoolan in ay magaalada Muqdisho soo geliso ama guud ahaan dalkaba waxyaabaha kontrabaanka ah ee la mamnuucay inay wajihi doonto ciqaab tan ugu adag oo ay marsi doonaan maxkamadaha ku shaqada leh. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ma aqbali doonaan in magaalada Muqdisho iyo goobaha kale la soo geliyo waxyaabaha kontrabaanka ah oo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed dhaamaya. haddaba milkiilayaasha doomaha iyo dadka ku hoolanka ganacsiga kontrabaanka waxaan uga digaynaa inay ku dhiiradaan inay magaalada Muqdisho soo geliyaan waxyaabahan la mamnuucay ee dhaqankii iyo diintii ummadda Soomaaliyeed ba ku dheelay. waa jiraan baaris ayaana ku socota cid kasta oo ku shaqo lehna waxa la wajihi doonaa ama horgeyn doonaa maxkamadda ku shaqada leh si loo marsiiyo ciqaabta ku habboon. Faaduma Cabdi Qaadir, TV-ga Dalsan, Muqdisho.